Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Rafiki Academy. Fadlan kanaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar. Haddii aad u subscribe garaysana waad ku mahadsan tahay. Ee la wadaag saaxiibaha. Cashirkani waxaanu ku baranaynaa matumizi ya hu. Hu hutumiwa kuonyesha hali ya mazoea. Hu waxaa loo adeegsadaa marka laga hadlayo shay qofka dabeecad u ah amaba lagu yaqaano amaba qofka uu u bartay inuu sameeyo ayaa loo adeegsadaa hu. Mifano tusaale, mtoto canuga hulia wuu ooyaa kila siku. Hulia kila siku, maalin kasta wuu ooyaa. Cunugani maalin kasta wuu ooyaa. Waxaa lagu yaqaanaa inuu maalin kastaba ooyo. Waa wax dabeecad u ah. Tusaalaha labaad waa polisi nzuri, booliska fiican. Hukataa wuxuu diidaa hongo laaluush. Polisi nzuri, booliska fiican. Hukataa wuxuu diidaa hongo laaluush. Marka labada tusaaleba waxay tusinayaan waxa qofka dabeecadiisa ah. Booliska fiican ma qaadan kara laaluush. Wuxuu diidaa laaluushka. Waxa uu dabeecada amaba lagu yaqaanaa inuu diido laaluushka. Canugana waxaa lagu yaqaanaa inuu iska ooyo markasta sabab la'aan. Marka mtoto hulia kila siku, canugu wuu ooyaa maalin kasta. Tusaalaha kale waxaa waye yeye asaga huosha wuxuu dhaqaa mikono gacmaha baada ya kutoka kadib markuu ka soo baxa chooni musqusha. Yeye asaga huosha wuxuu dhaqaa mikono gacmaha baada ya kutoka kadib markuu ka soo baxa chooni musqusha. Marka asaga waxaa lagu yaqaanaa in markuu musqusha ka soo baxa uu gacmaha mayrto ama uu gacmaha iska dhaqa. Abdi hufua nguo zake mwenyewe. Abdi hufua wuxuu dhaqdaa nguo zake dharkiisa mwenyewe. Mwenyewe asaga laftirkiisa way. Marka Abdi wuxuu dhaqdaa dharkiisa asaga laftirkiisa. Ama Abdi waxaa lagu yaqaanaa inuu dharkiisa asaga dhaqdo ee uusan la sugayn qof kale inuu u dhaqa. Mama hupika chakula kitamu. Mama hupika chakula kitamu. Mama hoyo hupika waxay karisaa chakula cunta kitamu. Mama hupika chakula kitamu. Mama hoyo hupika waxay karisaa chakula kitamu cunta macaan. Ama hooyo waxaa lagu yaqaanaa karinta cuntada macaan. Ama hooyo waxaa u dabeecad ah karinta cuntada macaan. Marka ereyadani dhan waxay tusinayaan shayga qofka dabeecad u noqday amaba lagu yaqaan uu markasta sameeyo. Cashirkeen halkan ayuu ku egyahay. Waad ku mahadsantahay.